الله وبركاته وبلاشيني ياسمين الجعليه هلكا ديك داونيسا ما يوتيوب channel كيga ياسمين الجعليه official وبلاشيني هي ياسمين الجعليه مسكينته maalmahan iska mashquulsaneed dib isku soo noqonay alxamdulillah shukr rabbil alamin waan caafimaad qabaa idinkana waxaan idin rajeynayaa sidaas silmida inaad caafimaad qabtaan alxamdulillah ala kulli xaal waan soo noqday way kana please subscribe ka haynaga ilowina haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay adigoo mahadsan subscribe ka dhac ku sii like taayide si asxaabtaada kale u gaarto share ide si aad la wadaagtid asxaabtaada familigaada iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhawaada asxaabtaydii hore ila joogtay maalmahan isweynay way kana waa soo noqday alxamdulillah shukr rabbil alamin maanta way kana de marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin haysato dhalinyarada ma ahan just dhalinyarada Soomaaliyeed waa arrin wada haysata kulli dhalinyarada ku nool qurbaha ha ahaadaan Arab ha ahaadaan Madow ha ahaadaan Afrikaan ha ahaadaan Soomaali ha ahaadaan cadaanka wadanka u dhashtay laakiin aniga waxaan ka hadlayaa dhibaatada haysato dhalinyaradeenii wiilasheenii Soomaaliyeed waa dhalaanka soo baxaya waa mustaqbalka wadankeena marka waxaan idin wadaa gabar Soomaaliyeed oo ka hadlayso ama ku gabyeyso Swedish laakiin waxa ay gabaygaasi ay kula hadlaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ay leedahay dhibaatada oo kasoo gaarayso dhibaatada mustaqbalka ay ka dhibaateynaysa ama ay gaarsiinaysa ama oo kala kulmi kara gabadhani waa gabar daayar waa gabar dhigata jaamacadii sanadkii labaad ay ku jirtaa waxa ay ku barbaartay wadankani Sweden waxa ay sheegtay in la keenay iyadoo aad iyo aad u daayar daadeedana ay sheegtay markaas inay jirtay 7 sano laakiin ay ku barbaartay dalka Sweden waatana iyada oo inooga hadlaysa ما شاء الله waxa ay tire waxa ay hadda barata waa macalinimo ma sha Allah macalinimada waxa ay tiraahday waxaan ku bartaa luqad Englishka iyo psychology iyo Swedish so marka waxay rabtaa in ay hadhowti caawiso dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay u dooratay macalinimada ay dooratay waxay tire waxaan rabaa inaan caawiyo dhalinyarada dhibaataysan idinkama dhaxgalaayo aan si socono abta waxaan bartaa secondary school macalinimo markaas maadooyinkaygu waxa weeyaan history English iyo psychology markii hore waxaan rabay intaanan macalinimada gelin waxaan rabay inaan psychologist noqdo therapist noqdo si aan dhalinyarta u caawiyo amba dhalinyarta kusoo kortay nolol adag amba ka timi dynamic familygooda adag yahay laakiin waxaan si waxa fiican in laga hortago problemka markaas shaqada u fiican waxay ahayd macalinimada waana jecelahay inaan la shaqeeyo dhalinyarta amba carruurta yaryar markaas waxay noqotay wax perfect hadhow talana macalinimada caawiyo suwaaqi 5 sano ayaa la baranayaa ayay tiraahday aan baranayaa macalinimada si aan dhalinyarada kusoo kortay ayay tiraahday dhibaato ama family aad u adag kusoo barbaaray ama dhibaato kusoo kortay ayaan rabaa inaan caawiyo ayay tiraahday taas waa ayaan u doortay ayay tiraahday inaan macalinimo aan barto ama macalinimo aan barto ama aan noqdo macalin macalinimada Sweden waxayaan waa 5 sano waa masters weeyaan markaas hadda rabtid inaad sii wadatid oo sii wadan kartaa one of free education kayga alxamdulillah markaas
waxa doontidood baran karta markaas waxaan siray waan rabaa inaan dhalinyarta caawiyo soo intaan sugi lahaa intay weynaanayaan amba 50 amba 40 amba 30 noqonayaan aniga ii iman doonaan psychologist inaan iyagoo dhalinyara laga hortago problemkooda iskuulka lagaga caawiyo hadda waxay bilaabaysaa inay ku gabaydo luqadda Swedishka uusakar grab ayaa la dhahay tirada taas oo ay macnaheedu inoo sheegaysa marba inaad idinkaga hor dhaca waa aqaana luqadda Swedishka laakiin iyada ayaa inoo sheegaysa kan waxa la yiraahdaa magaciisu waa uusakar grab marka waan idii akhrin kadib waan idii turjumi waxaan ka turjumi markaas waxa weeyaan osäker grabb, osäker blick med osäker skratt. Det enda han gör är försöker komma ifatt. Alla dessa trender, säljer sin själ för dessa trender, säljer sitt liv för dessa trender, säljer droger för dessa trender, kommer sedan tillbaks med bundna händer. Och när jag gömmer fällande tårar frågar min son vad hände, födde dig helt ensam, vad hände, brände. والله gabadhani waxa ay ka hadlaysaa exactly waxa hadda haysto dhalinyaradeeni aad ay u qiiroodo wallahi erayasha ay sheegaysa waxa ay taabanaysaa just meesha dhalinyaradeeni hadda Soomaaliyeed haysato ama ay ku jiraan mustaqbalkooda hooyooyinkoodii dhibaatada ku dhacaya ama ay arkayaan markii ay ilmahoodii la geliyo midi markii ilmahoodii xabsi la geliyo markii ilmahoodii toorey la geliyo noloshoodii ku burburto marka aad iyo aad ay ugu qiiroodo wallahi laakiin ila sii daawada min framtid och min fucking past, vad hände? Ditt ego hände. Skriker F-systemet med systemet fucka dig. Vita mannen lekte med dig. För han radade upp leken så fint och du följer alla fällor så fint. Men wallah, det är fett synd. För medan du letade efter guzzar och bilar, drömde om att byta filar, satt han och letade efter vart du skulle vila. Arrogans och högmodhet, bär ett kors eller ser Allah, tror att du vet. Lekte med ödet, du tog några liv, sparade alla dessa själar i ditt arkiv. Och nu tror du att du är Gud för du springer omkring med kniv. Bitch, please. Girighet kommer bara leda till falska... billahi waa qofki fahmaya ayaa fahmaya Swedishka laakiin gabadhani wallahi waxa ay ka hadlaysaa deesaanti waa wax aan soo arkay waa wax ku dhacay dhalinyaradeeni Soomaaliyeed aniga magaalo aan ka deganaa Sweden laba wiil ayaa sidaas ku dhimatay oo dhalay ay waxa dishay ajaanib kale ayaa dileen ninka cadaanka uu ugu dheelaya ayaa tiraahday because uu adeegsanaya drugs ayuu dhiibaya hooya dhashay hooya soo barbaarisay hooyadiis waxba kama og hooyo halkaas aada dhalinyaro aada u dhaxaya drugs oo iibinaya noloshiisii halkaas ay ku burburto waxbarashadiisii waa ka tagay Vänner och svett, aldrig till någon frihet. Fängelse 3-5. Gatan kommer aldrig vara ditt hem. Postkoden du reppar kommer aldrig vara din vän. nolosha oo wiilkaasi ku dhacaya dhibaatada dhalinyarada haysata markaas waxay tahay drugs ayaa loo dhiibaya soo gadaya la dhahaya waxa loo dhiibaya waxyaabo kale inta markii lagu qabto ama boolis oo qabta imista sana ayuu soo laqaya ayaa isleedahay oo mustaqbalkiisii ku ciyaaraya 3 ilaa 5 sana ay tiraahday qaarnaba kaba sii badan Din grav kommer vara din eviga säng. Men nu ligger du där död och kall, var det värt det? Jag sa nu ligger du där död och kall, var det värt det? Var är dina Guns and Glocks? Var är dina Boys and Rhymes? Var är dina bilar och guzzar, ha? Var är orten du dog för? Postkoden du svor för? Var är de? Snackade om Eastside, Westside, men nu är du Deadside, nigga. Men hoppas det var värt medan det varade. Grabbarna du hängde med i här lidande. Undrar vems mamma som ska gråta härnäst. Oh my goodness wallahi det är sant waa nolosha haysata ama dhibaatada haysata dhalinyaradeeni Soomaaliyeed haddadan la joogo Sweden had in America Ingiriiska ama UK Norway dhibaatada dhalinyaradeeni Soomaaliyeed iyo Canada meel walba dhibaatadaasi way ka jirtaa
maahan kaliya wadanka ay gabadhani hadda ay ku nooshahay ee Sweden waa wadamo kasta ay ku nool yihiin dadkii Soomaaliyeed dhibaatadaas ayaa haysata aan ku sii soconaynaa vilken syster som ska begrava sin bror härnäst, vilken pappa som ska bära skulden för han inte fanns där för sin. waxay tiraahday ma ogaan kartiin hooyadiisa sida cunugaasi ay u ooynaysa ma ogaan kartiin ayay tiraahday walaashiisa waxa ay duugaysaa ama qabriga ay geynaysaa walaalkii la dhashtay iyada aabihii dhalay sidoo kaleenta because wiilka haddii oo mar walba ku sii socdo daroogiska ama la isticmaalo la dhaha soo gad soo iibi lacag u dhadhamiya marraba ma ka haraayo xabsiyaa la gelinayaa mustaqbalkiisa halkaas ugu dhamaad uu soo baxaya meesha ayuu kasii bilaabaya Son härnäst. Och jag förstår att man måste hassla i detta liv, men måste man handla med sitt liv då? Och jag förstår att man måste mata sin mamma, men vilken mamma kommer fortsätta äta efter detta då? Postar upp dig på IG. Rest in peace, för du var en OG, I guess. Det var säkert inte ditt beslut, men snipp, snapp, snutt så var din saga slut. yes just waxa ay tusayaan kuwa drugs iibinaya oo isticmaalaya dhalinyarada iyaga iyo booliska mis arkaya laakiin dhalinyaradan maskiiminta oo hadda soo bixayso ayay waxa ay u isticmaalayaan ama ay dhahayaan lacag ayaan ku siinayaa intaas ayaan ku siinayaa haddii aad meeshaas ii geysid gaarigaas ayaan ku siinayaa haddii aad intaas ii qaadid oo ii geysid meesha aan rabay dhalinyaro lacag la tusane maxaa ku taqaanaa way iska raacayaan dhalinyarada Soomaaliyeed hal idif waaye inta badan xataa markii ay dugsiga high school dugsiga sare ay dhameeyaan dhalinyarada waxa ay galaan shaqada markaas ay galaan hadii waa kuwa fiican hadaya kulli ma ahan kuwa dhameynina jira dugsiga sare kuwa fiican oo dhameeya dugsiga sare oo markay ay jaamacad inta ay ka bilaabi lahaayeen waxa ay sameeyaan shaqooyin ayaa jirta ay bilaabayaan oo samarkaas iskuulka markuu u dhameeyay summer job ayaa la dhahaa waa shaqo samarka la siiyo dhalinyarada lacagtaas ay dhadhamiyaan markaas intooda badan maba ku noqdaan ba jaamacad ama ma raadiyaan kuwoodii fiicnaa shaqadooda ay toos u sii wataan oo lacag ay rabaan kuwii kale inta shaqaysan karin oo lazy ah oo jiifka iska raba iyana lacagtii ay dhadhamiyeen shaqadina ma rabaan shaqadan ayaa arkayaan oo dhalinyarada asxaabtooda kale inta markaas ku jirtay ay tusinayaan ee dhahayaan maxaa ku falaysaa camal inaad shaqaysid iska soo hurud iska soo kac halkaas ayaa taala camal lacag saana jirto meesha wax geynaysa anaa ku siinaya sidaas ayaa wiilkii lagu gelinayaa marka I hope marka inay ka waantoobaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqli yeeshtaan waalidkii dhalayna halkaan ay kaga faraya in ay caruurtoodii sidaas ay u daba joogaan ay ilaaliyaan ilaaha wax ilaalin karo laakiin se hooyo iyo aabba caruurta hal ilaaliyo siiba dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaha sidaasi ma ahan oo hal idif gabar gasha laakiin inta badan markasta dhimata la duuga midi la geliya handicap laga dhiga cashan lug la jara wadna meel dhibaatada ku dhacday inta badan waa wiilasha Soomaaliyeed marka ilaahay ha inaga badbaadiyo ilaahay rabbiga raxmaanka ha ka celiyo waxaas aad ayaan u qiirooday wallahi billahi markaan dhageystay gabaygaas gabadhaasi marka asxaabteedii sharafta leh aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin walaashiina Yaasmiina Jacleed waa isku soo noqon doonaa insha Allah aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin subscribe kana haynaga ilaawina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh